markab wada shidaal oo lagu haystay xeebta puntland ayaa si nabad ah lagu sii daayey kadib markii dableydii haysatay ay isaga dageen goor habeennimo ah markabkaasi. wararka qaar ayaa sheegayay in dableydani ay ku sii daayeen markabka wadahadal xaajood 3 gees ah oo dhex maray iyaga hoggaanka dhaqanka iyo maamulka puntland. hase ahaatee cabdiraxmaan xaaji xasan oo ah agaasimaha guud ee ciidamada ilaalada xeebaha puntland oo u ramay wariyaha v o eda jacfar kuukay ayaa arrintaas gaashaanka u duruuray kuna sheegay waxba kama jiraan. abaarihiis fiidkii 10 habeenimo ayaa waxaa gacanta ku dhigay markabkaas oo la wareegay ciidanka ilaalada xeebaha puntland si nabadgelya iyadoo aan dagaal iyo khasaare midna ka dhicinin. halkaasna way ka baxsatay dableydii maaragtay uu qafaallaa kadib saakay barqadihii markii uu dagaal kooban dhex maray iyo magaratay dowladda puntland oo mar walba ay ka go-an tahay inaan marnaba wax gorgorta laga gelin cid kastoo isku dayda inay ka kafaalato maraakiibta gooshiisa xeebaha puntland. marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baan ugu xamdinaqaynaa. waxaan u sheegaynaa cidda boo isku daydaana inay sidaa iyo si lamid iyo cawaaqib kasii dhigatay meesha alla ula kulmi. waaya markabka hadda halkee buu ku sugan yahay? markabka hadda wuxuu soo jihaysan yahay magaalada boosaaso halkaasoo ay maaragtay dowladda maaragtay puntland ay kula kulmayso dadkaas oo muddo badan hadda meelmahaas lagu haystay maalmahakeena soo dhaafay. marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay meeshaa ku dhastaan kadibna ay sii wataan safarkooda haddii alla yidhaha. halkay ku dambeeyeen raggii afduubka geystay? qalayda sidaan kuu sheegay habeennimay ahayd iyagaa si tartiibay uga baxsadeen meeshaas. jaaris maaragtay wadahadallo odayaal iyo waxaas maarata malaha la shaqaynayay. arrintaasna maarata si nabadgelyaabay ku dhamaatay. maaragtay saasaan kuu sheegayna haddii ala yidhaha. ma weerarka ciidamadu ay ku qaadeen bay ka baqeen oo sidaabay markabka uga degeen mise waxaa jira qaab kale oo lagu soo gebagabeeyey afduubkii markabkaasi lagu haystay? inaba haba yaraatee wax madax furashaa oo markabkaas laga baxsana ma jiraan, wax gorgortano laga galayna ma jiraanin. dabcan waad garan kartaa ciidanka iyagu wuxuu ku hareereysnaa ama dhinacyada ka fadhiyey markabka ilaa iyo 2 maalmood qiyaastii shalay iyo xalay iyo maantayba. kadibna iska horimaadyaa ka dhacay maantayta 2 goor iyo xulays badan oo ciidanka dawladdu uu soo saaray. sidaas daraaddeed waxay soo dhawaatay in nimankaas ay taladooda kusoo dhamaato inay ka degtaan oo iska dhiibaan markabkaas iyagoo maaragtay naftooda badbaadsanaya. waxaa nagu maqaalo ah inuu jiray wadaxaajood iyo wadahadal qaar ka tirsan odayaasha deegaanku ay la galeen raggaasi kuna qanciyeen ugu dambayntii in ay markabka isaga degaan. adiguna waxaad noo sheegaysaa hadda in awood ciidan oo halkaa ku wajahneed aawadeed ay uga baxsadeen ama uga carareen. wallahi anagu haddeer maaragtay kolley dawladdu gorgorta kama gelin wadahadalna kama gelin, laakiin deegaanka odayaashii joogay iyo iyaga wixii dhex marayey arrintaas arrin iyaga maaragtay dadka deegaankay u taalla iyo dadkii maaragtay markabkaas saaraa. laakiin wax luga oo dawladdu ay ku lahayd haba yaraatee ma jirto. sidaa kuu sheegayena wax u dhaceen. insha allahu anagu habeeyadu waxayd in markabkaas iyo hantidiisu iyagoo nabad qaba inuu gacanta dawladda soo galo. wadahadalka aan hadda sheegayno waxaa qayb ka ahaa baa la leeyahay in raggan ay markabka si nabadgelye ah kusoo wareejiyaan iyagana aan la dabageli doonin oo faraha laga qaadi doono aan wax dembi a loo raacan doonin. annagu arrintaas ma ogin cidda idinku tiri balaha iyagaad weydiinaysaan. dawladda puntland gorgorta kama gelinin, heshiisay la gashay oo arrimahaas ku saabsan haba yaraatee ma jirto, bataasa ma jirto. marka aan ku leeyahay warka rasmigaa weeye dawladdu ciday heshiis kula gashay in dadkaas la daayo markabkana ay sii daayaan haba yaraatee ma jirto. waayahay ma jiray xiriir idin dhex maray adinka iyo qolyihii markabka lahaa shirkad ama dawlad oo ku aadanaa in aad markabkaasi awood kusoo furataan amaba waan wixii markabkaasi lagu soo badbaadin karo iyo shaqaalihiisaba in aad samaysaan, mise iyadoo aanay wax xiriira jirin ayay dowlad goboleedka puntland si gaara isku xilqaantay oo markabkaasi ay kusoo furatay? si gaara dawladda puntland waxay u xilsaaran tahay inay hawshaas waa waajibaadka dawladda loo idbabay inay xiriir kala samaysa haba yaraatee ma jirto. laakiin dadka awdariska waa laga yaabaa inay dad maaragtay la soo xiriiriyeen iyaga oo ilaashanaya hantidooda iyo dadka iyagoo ay ka dhashay oo markabka saaran in si nabadgelyaha maaragtay wax lagu raadiyo oo aan dhibaato isa soo gaarin. laakiin wax compromise iyo wax heshiis oo dawladda puntland iyo dadka awdariska ka dhexeeyay ma jirinin. laakiin de waajibaadka shaqo oo dawladda saaran waxa weeye hantida iyo dadka maaragtay markabkaa saaran inay iyagu ku dadaalaan nabadgelyahooda iyo amnigooda inay badbaadiyaan. aad iyo aad baad umahadsan tahay.
salaamaya.